kadib dagaalo qaraar oo maalmihii la soo dhaafay deegaanka canfarta ku dhex maray ciidamada difaaca Itoobiya iyo kuwa canfarta oo isku dhinac ah iyo TPLF oo dhinaca kale ah. dowladda Itoobiya warbaahinteedu waxa ay sheegtay in khasaare lixaad ay gaarsiisay kooxda TPLF oo ay gab ahaan burburisay cutubyo ka tirsanaa kooxdaas oo ay iyagu ku gacan sareeyeen goomo ay ka mid yihiin deegaanada Jafra, Hidda iyo Keela oo ka tirsan deegaanka canfarta. warbixin laga sii daayay telefishinka Faana ee gacan saarka la leh dowladda Itoobiya ayaa lagu baahiyay 10 maxaabiis oo ay dowladdu sheegtay in lagu soo qabtay dagaalka. qaar ka mid ah maxaabiista dagaalka lagu qabtay oo u muuqday kuwa lagu khasbay waraysi ayna ogolayn ayaa ka warramay inay TPLF meesha ay qabsatay ka geysatay dhac iyo boob hantiyadeed oo ay kula kacayso dadka shacabka ee deegaanadaasi ku nool, waxaana ay qireen inay arkeen gaboodfalle ka dhana xuquuqda aadanaha oo goobahaasi ka dhacay. መጥፎ ስራዎችን ሰርቻለሁኝ ኢትዮጵያ ህዝብን አስቀይሜያለሁ ኢትዮጵያ መንግስትንም እንደዚሁ ማለት ነው። waxyaabo aad u xun ayaan samayn jirnay, qalad weyn ayaan ka galay Itoobiya. mar aan meel qabsano waxa dhici jirnay beeralayda, xoolaha ayaan ka dhici jirnay, dumarka ayaan kufsan jirnay, dadkana waanu leyn jirnay. waxaanu amarna lagu siiyay inaan xasuuqno dadka amxaarada ah iyo canfartana sidoo kale. hadafkayaga waxaanu loogu sheegay inuu yahay inaan Addis Ababa qabsano, waxa yiri mid ka mid ah maxaabiista TPLF ee dagaalka ay ku qabatay. warbixinta waxaa lagu sheegay gebi ahaanba in la baabiyay xeryo military oo muddo kooban ay TPLF ku siinaysay tababar maleeshiyaadka kadib markii duqeymo dhinaca cirka oo ay diyaaradaha Itoobiya ku qaadeen qaar ka mid ah xeryahaas oo lagu kala magacaabo Agbe, Agluwa, Kuha iyo Degamo. tababarayaasha ayaa lagu sheegay inay ku jiraan saraakiil hore oo ka tirsan ciidanka Itoobiya oo ay ka mid yihiin Brigadier General Abraha Dinkul, Colonel Welter Macnon iyo Colonel Afara Azafa, kuwaas oo tababaro gaagaaban siiya maleeshiyaadkan. መሪዎቻችን ያው ምንድነው ህዝቡ ጋር ያለው ነገር ይታወቃል። የአማራና የአፋር ህዝብ ጠላታችን እንደሆነ አድርገው ነው። waxa hogaamiye noo ahaa Colonel Welter Macnon, waxa uu amar nagu siiyay inaan amxaarada aan u galno sida ay noo galeen. waxaan isku qaybinay laba jiho, qaar waxay aadeen Qabo, aniga iyo ciidanka aan ka tirsanahay waxaana loo soo diray deegaanka canfarta. muddo bilah ayaan ku sugnayn magaalooyin yaryar oo ku yaala deegaanka kadib markii aan ka barakicinay dadkii deganaa, ayuu yiri mid ka mid ah dadka la qabtay ee warbaahinta Itoobiya waraysigooda ay baahisay. አሁን ይሄ የጁንታ ኃይል ማለት ነው ለሴቶች ሰላም እያለ ሰላም እናስከብራለን እያለ tani waa gabar ka mid ah ciidanka TPLF ee lagu qabtay dagaalka. waxay sheegtay inay aragtay kufsi loo geysanayo gabdho ka soo jeeda qowmiyadaha amxaarada iyo canfarta. kuwa madaxda noo ah waxa ay rabaan inay ubadkooda nabadgelyo ku noolaadaan, annagase waxa ay noo soo direen dagaalka. waxaan aragnay ficillo arxan darraa oo ay geysanayeen, waanu ka walwalsannahay, waxayna ahaayeen wax weyn oo laga yaqiiqsoodo. maxaabiista Itoobiya ay sheegtay in lagu qabtay dagaalku waxay sheegeen in dhammaantood lagu khasbay inay dagaalamaan, balse aanu jirin qof rabitaankiisa ku yimid furimaha hore ee dagaalka. si kasta ha ahaatee, inkastoo ay kooxda TPLF guulo waaweyn sheegatay dagaalkan sana jirsaday ee ka socda Itoobiya, waxaa haddana muuqatay in dharbaaxo xooggan ay kala kulatay deegaanka canfarta, siiba marka ay isku dayeen qabsashada deegaanka istiraatijiga ee Mille oo ay marto wadada isku xidha Djibouti iyo Itoobiya oo halbowlo u ah dhaqaalaha Itoobiya. dagaalka ayaa sii socda, dhinacyadu guulaha ay sheeganayaan ka sokowna dadaalka caalamiga ah ayaa dhinaciisa garab socda, waana gaabis sida muuqata xilli ergada ka socota qaybta dhexdhexaadinta ee Afrika ay mar kale maqallo ku laaban doonaan. shirkadda Somnet Export ee ku taal dalka India waxay ku soo dejinaysaa khamiisyada, shaararka iyo saraawiisha, kabaha, isbarbaarka bajaajyada, dawooyinka. wuxuu faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda. madrasada Darul Istiqama oo uga barateen barashada Quraanka Kariimka ah kana qalin jabisay dafcadii 10aad waxay hadda idin soo kordhisay online academy oo ah qaab casri ah oo uga baran karto Quraanka adigoo jooga gurigaaga meel kasto aad joogto waad noqon kartaa ardayda Darul Istiqama. wixii faahfaahintaas dheeriya kala xiriir lambarada iyo gmailada shaashada ku qoran. Darul Istiqama daarta cilmiga.